majalada Times Higher Education ayaa soo saartay qiimeynteeda jaamacadaha dunida sanadkii tagay ee 2017 waxaana qiimeynta ka qayb qaatay 1000 jaamacadood oo dunida dacaladeeda ku kala yaala. markii ugu horeysay ayayna jaamacadaha dalka Ingiriiska galeen labada kaalin ee ugu horeysay qiimeyntan. jaamacadda Oxford ayaa gashay kaalinta koowaad iyadoo lagu tiriyo mid kamid ah jaamacadaha ugu faca weyn dunida waxayna u tahay sanadkii labaad oo xiriir ah ay ku guuleysato. hadda waxaa dhigta 22,000 oo arday 95% dadka ka qalin jabiyay jaamacadan ayaa shaqo ku helay 6 bilood gudahood. shaqaalaha jaamacadda ayaa ka kala yimid 100 dal oo dunida dacaladeeda ah. kaalinta labaad waxaa hantay jaamacadda Cambridge. nidaamka jaamacadan ayaa aad uga agdhow kan Oxford waxaana dhigta 18,000 oo arday. Cambridge waxa ay ka kooban tahay 31 kuliyadood iyo waliba 150 qaybood. waxa ay jaamacadan ku faantaa inay ka soo baxeen dad badan oo magac iyo maamuus ka sameeyay dunida oo ugu weyn yahay caalimkii weynaa ee Isaac Newton iyo waliba John Harvard oo ahaa aasaasihii jaamacadda Harvard. kaalinta saddexaad waxaa hantiyay California Institute of Technology. waa mid kamid ah jaamacadaha ugu korinta badan dhanka tayada inkastoo ay yar yihiin ardayda dhigata. waa 1,000 arday oo kaliya heerka koowaad ee jaamacadda halka heerka labaad ay gaarayaan 1,250 arday oo kaliya. in ka badan ardaydani jaamacadda ayaa la siiyaa qarash gaaraya 38,000 oo dollar taasoo lagu daboolayo baahidooda. waxaa kaalinta saddexaad kula jira Stanford University. jaamacadan ayaa soo saartay hal abuurayaal fara badan oo ka howlgala Silicon Valley kuwaas oo ka qayb qaata horumarinta tiknoolajiyadda ee dunida. iminka waxaa dhigta heerka koowaad 7,000 oo arday halka heerka labaadna ay dhigtaan 9,000. jaamacadan ayaa ku bixisa sanadkii qarash gaaraya 1.22 bilyan cilmi baarista iyo waliba mashruucyada. shanaad waxaa galay macadka tiknoolajiyadda Massachusetts. macadkan oo ku yaala dalka Mareykanka ayaa la aasaasay qarnigii 19aad iyadoo uu la gaar yahay kabida maaliyadeed ee ardayda. waa macadkii ugu horeeyay ee lagu barto injineeriyadda dhismaha waxaana dhigta heerka koowaad 4,512 oo arday halka heerka labaadna ay dhigtaan arday gaaraysa 6,807. dad badan oo ka qalin jabiyay ayaa ka howlgala shirkadaha ugu waaweyn dunida sida Google, Amazon iyo Apple. waxaa kaalinta lixaad soo ciriirsatay jaamacadda caanka ee Harvard oo ku taala dalka Mareykanka waxaana la aasaasay sanadii 1636. waxaa aad loogu amaanaa jaamacadda nidaamkeeda waxbarasho ee casriga ah waxayna leedahay 13 kuliyadood waxaana dhigtay heerka koowaad 6,700 oo arday halka heerka labaadna ay dhigtaan 15,250. waxaa dadka ka aflaxay kamid ah John Adams madaxweynihii labaad ee dalka Mareykanka, Benazir Bhutto, George W. Bush, Bill Gates, Ban Ki-moon, Obama iyo xaaskiisii waliba asaasaha Facebook Mark Zuckerberg. jaamacadda Bristol ayaa kaalinta 7aad iskeentay waxayna ku taala dalka Mareykanka. waxaa la aasaasay sanadii 1746 waxaana dhiganayay sanadii 2016 heerka koowaad 5,400 oo arday halka heerka labaadna ay dhigtaan 2,781. 16 caalim oo kamid ah jaamacadan ayaa ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize halka ay James Madison iyo waliba Woodrow Wilson ay kamid yihiin madaxweynayaasha Mareykanka ay ku abtirsadaan jaamacadan. Imperial College ayaa kaalinta 8aad gashay waxay ku taalaa dalka boqortooyada Ingiriiska waxaa la aasaasay sanadii 1845. waxay gaarayaan dadka wax ka barta jaamacadan heerka koowaad 9,583 halka heerka labaad ay dhigtaan 7,982. jaamacadan waxa ay ka kooban tahay 4 kuliyadood iyo 24 qaybood waxayna 3 kamid ah caalimiintii ka qalin jabisay ay ku guuleysteen abaalmarinta Nobel Prize. jaamacadda Chicago ayaa jaamacadda 9aad ee dunida ugu wanaagsan waxa ay ku taalaa dalka Mareykanka waxaa la aasaasay sanadii 1890. ardaydeeda heerka koowaad waa 5,970 halka heerka labaadna ay yihiin 10,045 waxaana lagu tilmaamaa jaamacadda ugu fiican dhanka heerka labaad. macadka East Zurich waxa uu xajistay kaalinta 10aad. waa macadka tiknoolajiyadda ee Switzerland waxa uu ku yaalaa wadankaasi Switzerland aasaaskiisuna waxa uu ahaa sanadii 1855.
tirada ardaydiisu heerka koowaad waa 8704 halka heerka labaadna ay yihiin 5474. macadkan waxa uu la gaar yahay sayniska iyo tiknoolajiyadda, injineerinka iyo xisaabta. culimada sayniska ka soo baxay macadkan ayaa ku caan baxay inay ku guuleystaan abaalmarinta Nobel Prize qaybta sayniska. 2 ayaa caafimaadka ku guuleysatay, 11 waxay ku guuleysteen chemistry, halka 9 kalena ay ku guuleysteen physics. haddaba hadmay jaamacadaheenu heerkaasi gaari doonaan.